howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo Africom ayaa tilmaamay inay weeraro iyo sidoo kale duqeymo ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. War ka soo baxay xafiiska Africom ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeymahani ay ka dhaceen duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland, isla markaana waxaa la tilmaamay inay ku dileen Mareykanka duqeyntaasi laba ka mid ah Al-Shabaab. waxaynu diiradda saarnay oo qiimeynay inay wax gaareen dad shacab ah in kale ma jirto waxyeelo soo gaartay dadka shacabka ah ay dhaheen kaliya waxa aynu beegsanay halka aan rabnay oo ah Al-Shabaab ayay ku sheegeen war ka soo baxay xafiiska Africom. waxa ay tilmaameen inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan dawladda Soomaaliya ee ka dhanka ah dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab, isla markaana waxa ay tilmaameen inay sii wadi doonaan nabad u helinta iyo sidoo kale kusoo dabaalida jawi degan dalka Soomaaliya. xafiiska Africom ee Soomaaliya Mareykanka waxa uu tilmaamay inay kordhin doonaan weerarada iyo sidoo kale duqeymaha ay ka fuliyaan Soomaaliya, gaar ahaan halka ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. waxaan sii wadi doonaa taageerada aan siino dawladda Soomaaliya, waxaan ku dadaali doonaa hanaankii aan u wajihi lahayn nabad kusoo dabaalida Soomaaliya ay hadalkooda ku direen xafiiska Africom loo yaqaano ee Mareykanka. tan iyo markii talada dalka uu la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sii kordhiyay weerarada duqeymaha ah ee diyaaradahooda droniska ay ka furiyaan inta badan gobolada Soomaaliya, waxaana madaxweynaha dalka Mareykanka uu hore u sheegay horaantii sanadii 2017 inay sare u qaadi doonaan duqeymaha ay ka wadaan Soomaaliya ee ka dhanka ah Al-Shabaab.